soonka Ramadaan waxa uu leeyahay faa'iidooyin badan oo caafimaad. Marka laga tago muhiimadda nafeed iyo diineed ee uu leeyahay, soonka Ramadaan waxa uu kaa nasiyaa cuntada, waxa uuna kuu horseedaa caafimaad. Waajihidda soonka niyad ahaan iyo jidh ahaanba waxa ay kuu keenaysaa faa'iidooyin maskaxeed, jidheed iyo caafimaad ahaaneedba. Aan kula wadaago qaar ka mid ah faa'iidooyinka caafimaad ee soonka bisha Ramadaan. Waxa uu kor u qaadaa habdhiska difaaca jidhka. Habka difaaceenna ee jidhku waxa uu aad u horumaraa xilliga soonka. Waxaa hoos u dhaca caabuqa iyo oxidative reaction-ka. Waxaa sidoo kale hoos u dhaca pro-inflammatory cytokiniska, waxaana kor u kaca soo saarista antioxidantska, taasi oo caawisa in lala dagaallamo xanuunka iyo cudurka. Sidoo kale qolooyinka bartay nafaqayntu waxa ay sheegeen in soonku xoojiyo habdhiska difaaca guud ahaan iyo in unugyadu iska saaraan kuwa shaqo gabay. Waxa uu caawiyaa qaadashada unugyada ee insulinta, ama waxa uu kor u qaadaa insulin sensitivity-ga. Insulin resistance waa iska caabinta unugyada ee dheecaan dheellitiraha jidhka ee loo yaqaano insulin, kaasi oo la xidhiidha xanuunka macaanka, gaar ahaan noociisa 2. Soonka bisha Ramadaan waxaa markaas kor u qaadaa qaadashada unugyada ee insulintaasi, oo hoos u dhigaysa halista ah inuu qofka ku dhaco xanuunka loo yaqaano macaanka noociisa 2. Waxa uu dhiirigeliyaa dhimista miisaanka. Soonku waa hab fudud oo la ysaga dhimi karo miisaanka iyo cayilka. Yaraynta qaadashada kaloriska iyo ka fogaanshaha cunnada iyo cabitaannada wakhti dheer waxay sahlaysaa in la burburiyo miisaanka aan loo baahnayn. Waxa uu sidoo kale u fiican yahay badqabka iyo caafimaadka wadnaha. Soonka Ramadaan waxa uu muhiim u yahay caafimaadka wadnaha. Waxa uu hoos u dhigaa garaaca wadnaha iyo sidoo kale leefalka kolestaroolka, taasi oo caawinaysa habsami u socodka qulqulka dhiigga. Sidoo kale waxa uu hoos u dhigaa khatarta wadne xanuunka iyo cudurrada la xidhiidha wadnaha. Sidoo kale waxa uu horumariyaa qaabka shaqada maskaxda. Soonka ayaa ah mid aad iyo aad u saameeya shaqada maskaxda oo aad u horumarta xilliga soonka. Waxa aad u bata soo saarista BDNF-ka oo ah borotiin caawiya caafimaadka iyo shaqada unugyada maskaxda. Waxaana horumara xusuusta, barashada wax cusub iyo guud ahaan mentality-ga qofka. Sidaas daraaddeed, soonka bisha Ramadaan waa mid aad iyo aad muhiim ugu ah caafimaadka guud ee qofka. Waxaan rajaynayaa wax badan ka faa'iiday. Ilaahayna ha inaga dhigo kuwa ka faa'iidaysta bisha Ramadaan caafimaad ahaan iyo nolol ahaan iyo diin ahaanba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.